السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحابي maanta waxaan ku arkaynaa afar kelmadood oo aad u cajiib ah waana kelmado aad u adag afka Faransiiska dadka inta badan waxa dhici karta inayna ay garaneyn dadka afka Faransiiska ku hadla ku u dhashay maahine inta baranaysa gaar ahaan dadka aad u fiican afka Faransiiska way garanayaan laakiin qaar badan inay kelmadahan ay ogeyn baba dhici karta halkan baan ku arkaynaa macnahooga laakiinse halkay ka soo jeedaan iyo meesha laga soo qaatay kelmadahan iyo sababtay ku baxeen haddii aad rabtaan commentiga igu soo sheega isbaan video kale uga soo samaynayaa marka ayakii oo macnaysan oo sidii ay ku dhaceen iyo sababtay u dhaceen aan macnaynayo ayaan video gaara ka soo samayn rabaa insha Allah waa haddii aad commentiga aad igula soo wadaagtaan laakiinse maanta halkan waxaan ku arkaynaa macnahooga loo isticmaalo af Faransiiska waayo waxa dhici karta iyadii oo ku dhex jirta meel aad ka aragtay ama waxaad akhrinaysay amba qof af Faransiis ku hadlayay amba war aad degeysanaysay oo macnaheegina aad garan weyd ayaa dhici karaysa marka aad bay muhiim tahay in kelmadaha caankan oo kala la barto kelmadda horeysa waxa weeyaan syndrome de Stockholm kelmaddan syndrome de Stockholm macnaheegu sida imika halkan ku haysano halkay ka soo jeeda asalkeega kama hadlayno laakiin macnaha ay leedahay ee waxa loo isticmaalo ayaan arkaynaa waxa la leeyahay waxa weeyaan waa phénomène psychologique ou des otages ama ou des victimes développent une empathie voire un attachement envers leur ravisseur ama leur bourreau syndrome de Stockholm waxa weeyaan balaga yiri waa phénomène waa dhacdo waa wax dhacda psychologique oo yacni waa wax madaragtay maskaxiyan ama qofka ka dhaadhacsan ama wax madaxa qofka kaga dhalata oo maxay keenaysaa waxa laga yiri u desotage dad la qabsaday oo maxaabiisa oo la haysto oo la afduubtay amaba u de victim ama dad dhibaataysan ama qof dhibaataysan develop lagu arko inuu yeesho qofkaasi ama qofka maxaabiiska lagu arko inuu yeesho in empathy inuu naxariis u qaado uu jacayl u qaado uu madaragtay dareen u galo voix un attachement ama uu ku xidhmaba ayuuna ku xidhmayo qofkaasi jeclaanaya envers les ravisseurs qofkii dhibaateynayay ama qofkii afduubtay ama qofkii buuqoogiisa haya dhibaatada u geeyay ayuuba jeclaaday ayuuba ka naxayaaba way dhacdaa waxa laga arkaa maxkamadaha inan yar gabar yar oo ninni fiyooleeyay oo dhibaato u geystay oo kufsi u geystay waliba ul wax ugu daray wax kasta ku sameeyay kolka maxkamadda la geeyay ninkii loo xidhay rabo ay isku oyday ilmihi yare na maxaa kugu dhacay ninkii waan jeceeyay xidhna tiraadaba waxaasi waa wax syndrome Stockholm baa la dhahdaa iyada maaha waa wax ku dhashay intii uu qofkaasi qofka haystay oo uu dhibaateynayay waa wax marka dadka dhibaata ay ku dhacdo ama waxay ku dhacdo uu ku dhashay weeyaan waa nooc min xanuun oo kale xanuunna lama yiraahdo laakiin waa phénomène psychologique weey qofka ayaa laga arkaa waxa kale oo la arkaa gabadh uu qabo matalan nin aad ugu xun uu dilayo uu garaacayo amba uu cunto siineen uu bil siineen uu waxba siineen dhibaato ku hay dadkii kale dhan way arkayaan ninkaas gabadha dhibaato ku hayo dadku yeebiino ninkan gabadha maxay ka haysataa balaleey gabadhaas ninkan muxuu madaragtaan ay u fasaxi laadahay ayaa la leeyahay gabadheena ninkii ma sii deynayso way u ooyeysaa iga furo male waxa ku dhacay gabadha waxa la dhahdo syndrome de Stockholm sidaas oo kale waxa la arkaaba oo jeeda ka dhacday qof uu nin otage u qabsaday uu muddo inta la ciiska haystay adduunyada mar bay ka dhacdayba gabadh maxaan ku radaa ayuu nin afduubtay caan hayd oo wariyayna hayd inay daansaysa ma garan karo waan ka soo kala saar insha Allah ayaa jirtay ninba afduubtay wuxuu iska haystay baa la dhigay muddo intee lacag ayuu haystay waagii dambe gabadhii ninkii waa loo xiray markii jeelka laga soo saaray ninkii bay raaciye tire ninkii bay iska raacday waagii dambana gabadhii ninkii wuxuu sameyn jiray ayay kula beertay iyadii baa wixii uu sameyn jiray noqotay waxa la dhahdaa syndrome de Stockholm marka waxa laga yiri macnaheedu waa phénomène waa dhacdo psychologique maskaxiyan bay ka dhacdaa u desotage dad la dhibaateeyo la afduubtay ama victim dad dhibaataysan baa develop yeelanaya in empathy naxariis bay u qaadayaan jacayl bay u qaadayaan voix un attachement ama waxay u qaadayaan maxaan ku raraa kalgacayl
envers les ravisseurs kii dhibaateynayay buu jacayl u qaadayaa marka waa saas waa wax caynkaas oo dadka bini'aadanka laga arko dabeecada caynka dadku ay yeeshaan qofkii dhibaateynaya jecel ka go'ila sii dayn la laga reebi kari leeyahay maxaan ku raadaaye isaga ku daba tukanaya ayaa la dhahdaa tusaale wuxuu yiri malgré la dureté de son patron l'employé semble avoir un syndrome de Stockholm car il prend toujours sa défense tusaale wuxuu yiri malgré la dureté de son patron inkasta oo uu ku adag yahay oo uu ku xun yahay ninka chefkiisa patronku handana l'employé ninka miskiinka shaqaaluhu semble avoir waxaa muuqata inuu yeeshay un syndrome de Stockholm waxaas la leeyahay syndrome de Stockholm ama cudurka amba maxaan ku raad dabeecada caynkaas oo maxaa sababtu waa maxay car il prend toujours sa défense waayo isaga mar walba difaaca waa ninka ku xun ee uu shaqeeyo ee patronga u ah ee aadka isaga ugu adag buu handana halku aflagaado amba maxaan ku raadaa uu dhibaatadiisa sheegi la oran lahaa ninkaas uu xun yahay amba ninka u shaqeeyo fiican maaha dhibaatooyinka bigo halku ku oran lahaaba markay dadku la imaadaan ninka waa cayn ka ilaadeen ayuuba difaacay isagu dhinaciisa soo maraabo waxaaba ku dhashay la dhado syndrome de Stockholm kelmadan kale ee aan haysano iyaduna waa isla sida oo kale waxa la dhahdaa syndrome de Galile syndrome de Galile syndrome de Galile waxa weeyaan waxay sheegaysaa macnaheedu situation waa dhacdo weeyaan uu in person uu qofi exprime uu sheego une vérité run dhacda scientifique oo waliba cilmiya ama social ama bulsho aba qui reconnaît bien plus tard oo waaga dambe la oranayo inay waxa surunhay yaani waa qof waxbuu maanta sheegay waxa uu sheegayna waa xaqiiq waa wax uu arkay isagu ama wax uu isleeyahay waa dhacdo runa uu cilmi buu ku arkay amba wuxuu ku arkay bulshadu ka dhex arkay waa wuxuu sheegay haye laakiin dadka inta u badan inuu ninkaas iska hadlayo oo waxaan jirin uu joogin sheegayo ayaa la moodayaa laakiin maxaa dhacaysa bacda muddo hadalka ninkaas yiri ama waxa uu ninkaas sheegay bacda muddo ayaa la arki doonaa inay arintaas ay run hayd waaga dambe la oran doonaa ninkaas wuxuu sheegay waxba ka jiray tusaale oo kale waxaan maqalnaa inta u badan inuu Siyaad Barre waagii uu jiray uu oran jiray yani Soomaali weyn federaalka Soomaaliya haddii ay Soomaaliya dadka reer Soomaaliya ay yihiin buu yiri Soomaali diid haddii dadku yihiin waa la arki doonaa Siyaadiid haddii yihiin waa la arki doonaa buu yiri waagii dadku ay ka soo horjeesteen ay diidanayeen oo ay wax ku tilmaamayeen ayaa wuxuu yiri inay Soomaali diid tahay waa la arki inay Siyaadiid tahayna waa la arki doonaa maanta waxa ma aragtay la isku xantaa oo la dhacdaaba waninka waaga Siyaad Barre uu ku joogo dadku Siyaadiid ma yahayn iyagaaba Soomaali isdiidanaydo waa ta maanta Soomaaliyada is cunaysa iyadii is ogolaan la iyadii isku jeesatay weeyaano waagii ninka wuxuu sheegay run bay ahayd marka syndrome de Galile weeyaan marka tusaale kan waxaan ku haysanaa celui qui avait prédit les changements climatiques il y a 50 ans souffrait du syndrome de Galile maanta adduunyada waxaa la arkaa oo la sheegaa in uu jiro cimilada isbedelka oo dhulku kululaaday dhulka qaarkood baraf ka dhacay dhulka qaarkood kuleel jirin kuleel laga arkay dhulka qaarkood baraf aan jirin baraf laga arkay adduunyada ziyada mushkilad baa ka dhacday climatiga changement climatique baa dhacay isbedelka xagga cimilada dhibaatadu keensadana waa la arkay klimaaga maanta isbedelka cimilada maanta anagu aan ognahay nin baa 50 sano ka hor sii sheegay oo yiri adduunyada waxa ka dhici doona isbedel cimilada nin baa sii sheegay laakiin ninka waaga lama rumaysan waa la yaabana sidaa oo kale ayaa maxaan ku raadayay kelmadan loo isticmaalaa tusaale marka wuxuu yiri celui qui avait prédit les changements climatiques ninkii berigii yiri ee sii sheegay adduunyada isbedel ka dhici doona xagga cimiladu 50 sano ka hor ninkaas yiri souffre waxa ninka beriga haystay oo ninka uu lahaa syndrome de Galile waxaan leeyahay ayuu lahaa يعني Galile waa ninkii caalin maaragtay aqoon yahanka ay weynaa wuxuu sheegay oo isagu soo bandhigay
inay jirto cadceedu inay ku wareegto dhulka. isagu wuxuu sheegay Galilei yacni dhulku la terre tourne autour du soleil. Héliocentrisme baa la dhahaa afka Faransiiska. Afka Faransiiska waxaa la dhahdaa héliocentrisme yacni c'est la terre qui tourne autour du soleil. dhulka cadceeda ku wareegayay ee cadceedu ma wareegayso. cadceedu waa centre univers bartamaha iska taallaa ma dhaqaaqayso. cadceedu meesheedii bay taallaaye waxaan wareegaya waa dhulka weeyaan buu yidhi. waxaa isaga ka soo horjeeday waaga oo sheegay ninkii la odhan jiray Aristotle isna caalimha ayaa waagaa yidhi mayane c'est le soleil qui tourne autour de la terre. ninka Aristotle baa isaguna yidhi dhulka isagu iska joogaa uune waa cadceeda waxa wareegaysa. annaguba kolkii yaraantii waxaa nagala dhaadhicin jiray inay cadceedu ay socoto ay degdeg ku socoto intaa oo maxay malaayiin ku socoto si ay Mareykanka u tagtay u soo baxda ay anagana naga socoto. waxaaba markii aan yarayn aan ka maqli jirnay aabayaasheen iyo dadkii waa ka maqli jirnay. laakiin cilmiga scientific wuxuu sheegay cadceedu inay dhaqaaqayn oo dhulku halkiisii iska joogo. cadceedu ay halkeega iska joogto laakiin dhulka socda. waa sidaa waxay marna habeen noogu soo galayo marna ay noogu soo galayso dharaartu. markay dharaar noo soo gasho dhulkii baa socday halkii cadceedu iska khabeeyay oo maad aragtay harkii qaybtii harka ayuu dhulku sameeyay. saas midow noogu noqotay. marna dhulkii baa wareegay qaybtii cadceedu iftiiminaysay oo isku dhagay. saas baa imika ku macnayaan dadka gaaladu. ilaahay baa xaqiiqdan og. laakiin ninka Galilei wuxuu sheegay inuu dhulku wareego oo cadceedu ay dhaqaaqin ay halkeega joogto. waaga Galilei waxa la moodayay inuu iska hadlayo dhawaan baa la ogaaday inuu run sheegay. kelmadan kale aan haysano waxa weeyaan syndrome de Peter Pan. syndrome de Peter Pan. syndrome de Peter Pan waxa weeyaan waxay macnaynaysaa iyaduna waa adulte qui refuse de grandir. waa wax ku dhaca xanuun ma aha baa la yidhi markay sheegeen ragga khubaradu xanuun ma aha. waxa la yidhi waa wax ku dhaca dadka gaar ahaan dhalinyartu ku dhaca. qofkan ma weynaanayba xagga jirka maaha xagga aqliga ma weynaanayo. waa qof dhan oo weyn sida ciyaalka u dhaqmay sida ciyaalka u hadlayo ciyaaluun dhex fadhiya. waxa ciyaalku ubadku jecel yihiin maad aragtay jecel wax dhalinyartu maad aragtaanay jecel yihiin inaad aragtiin mooyaane. odyo dhan oo weyn waxa jira la dhahaa ani dhalinyaraa la dhahaa iskugu yeedha jira inaad aragtiin mooyaane. waxaa kaloo jira odyo dhan oo waaweyn oo ciyaalka dhalinyarta la fadhiista miisaska meelaha yare cafeteriaga kubadda la ciyaara halkuu rag dhan oo waaweyn raaci lahaa amba miskiidka ka joogi lahaa amba mas-uul ahaan lahaayuu magaalada iyo kaarteegu degan yahay nin odaya uu ka noqon lahaa ubad buu dhex joogaa. dadka caynkaasa waxaa loo yaqaanaa waa inay ku dhacday ama ay leeyihiin syndrome de Peter Pan. waa qof dhan oo weyn mas-uuliyaddii weynida ma qaadanaya mas-uuliyadda caruurnimadu qaadanaya. tusaale waxaa lagaa yidhi il passe l'essentiel de son argent et de son temps dans des passions coûteuses. ninkan lacagtiisa inta u badan iyo waqtigiisaba wuxuu ku bixiyaa dans des passions coûteuses. waxyaabo meerarowya oo bilaa macniya oo raaxada adduunyada iyo shahwaada oo weliba qaaliya lacag kaga baxayso. matalan waxaa ka mid ah video lacagtiisa dhan iyo maalkiisa dhan waxay kaga baxdaa inuu ciyaaro videogan iyo waxaan yara meerarowga inuu ciyaaro ama ma inay suuqay inuu bixitaan iyo habeenkii kolba meel hotel la tagiyo meel lagu soo ciyaariyo meel lagu soo daansiyo kolba meel ka soo cashee noloshiisii waxa uu ku dhamaystay. weliba muxuu sameynaa ninkaasi oo negligent totalement wuxuu dayacayaa weliba uu dayacayna saasontii caafimaadkiisii ama soo epargne ama lacagtii uu meel dhigan lahaa ayuu iska dayacayaa. waa ninay madaxiisa ciyaalnimo ay ku jirto. waa nin dhan oo odaya noloshiisii waqtigiisii lacagtiisii wuxuu ku bixinayaa waxaa meerarooga dhalinyartu ay ku mararowdi ayuu ku bixiyaa. iyo maad aragtay habeen la baxo iyo dhulkaa la meeraysto iyo kolba cashete kolba maqaaxite kolba maxayteg ayuu noloshiisii ku dhamaystay. waana qof dhan oo weyn. marka qofka waxaa ku jira oo uu yeeshay waxaan leeyahay syndrome de Peter Pan. syndrome de Peter Pan buu yeeshay. saasoo kale waxaa jira inaad aragteen mooyaane hawlo dhan oo waaweyn iyo inamo dhan oo waaweyn oo caruurnimo weliba ka bixila. anuu waan yar yahay anuu maanaa gaadhay. qof dhan oo weyn baa laga odhanayaa iska guursanin odayaate besanka waa yar yahay anuu intan baan yahay maanaa weynaaday buu ku leeyahay. gabdho waaweyn oo saa ayaa jiro oo iska ciyaala yaa anagu yaraantii waxaan ugu yeeri jirnay dadka caynkaaya waa garoon forma petit caro
وقف دونه وينادي ماذا حياة فاروقة ساسا يا الله يقنا حتى وحى الله أركابه والده عيالك وقف صنايع ويناتي سيد قف كوينو دقن دركن بدل درك عيالك وحدين من ناقوين بنقطة دركن حلو ده الله قال هذا جرساء حاول دونه وين صد عيالك كل بستا أي جرا أو والدك وقف بدنا قبلوين بنقطة أستر قبلوين بنقطة ويانو معي محان بيرادان ضد كاسو حاكو دعي سندروم دي بيتر بان تصالك اللي وحوري il rompt avec ses partenaires dès que la relation devient sérieuse. Il dit qu'il veut rester libre, mais en réalité, il a peur de perdre l'insouciance de sa jeunesse. Il rompt avec ses partenaires. Marwalba, gabadha uu la sheekaystay gabdhaha isbartaan ay jacayl ka dhaxeeyo xiriir ka dhaxeeyo ballantu uga baxa uu gooyaa goormuu goynayaa dès que la relation devient sérieuse mar walba oo xiriirkooga iyo wada socodkooga uu hadee toole inuu fiicnaaday la moodayo oo runtii inay bilaamatay yacni hadee toole xaqiiqina loo galay ma inay guur hadeed ay ka sheekaystaan dadku amba inay ciyaal isku dhalaan hadeed markii halka ay marayso dadkii liis aaminaba uunbuu uga baxayaa oo maxaa ku dhacay il dit qu'il veut rester libre wuxuu weeraad dadkana wuxuu ka yaraadaa war ma doonay guurna ma karayo ciyaalna ma karayo waxaan daldale inaan iska nasto raaxa aan iskaga jira amba buuq iyo qaylo ma karayo inaan xor iska haado ayaan doonayaa dadka ka yaraadaa laakiin waxa lagu leeyahay ma on qeyrati laakiin ururhaantii ninkan wuxuu soo samaynayo il a peur de perdre l'insouciance de sa jeunesse inuu dhalinyarnimadan iyo inuu hadii nin odaya noqday iskumaba arkayee dhalinyarnimada inuu ka dhex baxo ayuu diidan yahay insouciance de sa jeunesse waxay ka dhigan tahay dhalintu inta u badan way ka mas'uuliyad yihiin dadka waaweyn ninka dhalinyarta uu iska cunaya uu iska cabaya mas'uuliyadiisa oo dhan hooyay aabii ba saaranta mas'uuliyadiisa oo dhan aabii iyo hooyadii waalidkiisa saaranta waxba lama weydiiyo faktuur ma bixiyo maxaan ku raadayay waa waqtigu kubadda ciyaarayay waa waqtigu ma aragtaan fursad haystay waa waqtigu meel kasta ay u furan tahay ilaa dhalinyarnimada kaga qabo 15 jir ilaa iyo 20 jir 23 24 25 waa inta ugu fiican ee dhalinyarnimada ilaa 22 kaga soo qabo 13 jir ilaa 22 waa inta ugu fiican dhalinyarnimada ee qofkaasi ciyaal buu waliiska iyo dhalinyar waa kan wuxuu doonay sameeyay meeshuu doono maray mas'uuliyad ma saaro waxa la radaa insouciance de sa jeunesse waa bila walwal laakiin qof kale haduu weynaado 30 gaaro 30 gaaro mushkil waxa uu bilaamay mas'uuliyad inuu hadii toolka ka cafadhiga oo shaqada doonto hadii kalena uu shaqeeyaa shaqadii uu tagayaa wax badan buu iyo noloshiisa ka bixaya waxyaabo badan ku dhigneerta la fursad u haystay way ka baxaya ciyaartii badnayd waqti buu waayay xitaa haduu waqti haystana inuu ciyaaro ma doonayo oo fikirkiisa iyo isbedel nin weyn hadii mas'uula hadii toolo mustaqbal fuulay oo mas'uuliyad saaran tahay u dhaqmaya marka inta badan dhalinyartu iyaga mushkilad ma saarno waa ka iska ciyaarana xayaadan waxba lama weydiin iyaga ilmana kama ooyayo beel lagama doono faktuur ma bixiyaan kooraan looma soo tuuro biyo looma soo tuuro waxay u baahdaan hooyaysi aabaysi mushkilad ma saaro ninkan marka caynkaasa ee gabadh ali gabadhu barto inan ali inantu xiriir la galaba uga baxaya dadkana kale war inaan iska xor noqdo aska yarnasto waqtigu noo haray wali dhalinyar baan yahay dadka kale ninka war iskuma haye uu bukaayo xanuunkan baa haya syndrome de Peter Pan ciyaalnimada madaxiisa ku jirto cudurka ku dhacay rag badan oo saayna waa la arkaa waan aragnaa kelmadan kale u dambaysa waa aad bay cajiib u tahay waxa la radaa le travail de Penelope aniga ni sheegay halkan kuma macnaynayo kamantiga igu soo sheegaysan iyadoo oo gaara oo badan si fiican loo macneeyay sababtay ku baxday iyadoo waan soo diyaarin oo hadii aad kamantiga ilaa doorado aad igula soo wadaagtaan iyada kelmadan macnaheedu waxa weeye waa desin waxay tilmaamaysaa aan travail waa shaqo kelon recommence lagu soo celcelinayo sans cesse si joogta la'aan lama kala joojinayo waa shaqo lagu noqonayo kiine jaame termine mana dhamaanayso waa shaqo la wada mana dhamaanayso tusaale waxaad aragtaa qof maantoo dhan uunbu wax qoriyo war maxaa wadaaba ka tir waxaan baan qoriyaa buku waa ku soo noqotay bacda saacado kale 4 saac oo kale ninkii wixii qorayn baad aragtay war waan wixii ma dhameyn waan wadaay haddana mar kale aad aragtay wixii uun booda waxaad qoranaysaa ad waxaan ma dhamaysid waxay kugu noqotay travail de Penelope sidaas oo kale waxaan aragnaa aqal la dhisayo hoosta lagaga jiro mana dhamaadana
iyaga dariiqada mar dadku waxay yiraahdaan warqalkan ilaa goorma horta ayuu socda kan ma dhamaado waxa loo isticmaalaa travail de Penelope ayaa loo isticmaalaa tusaale wuxuu yiri réparer cette vieille voiture gaarigan baaliga ee duqoobay hagaajistiisu c'est le travail de Penelope waxay igu noqotay shaqadii gabadhii Penelope looranay ayay igu noqotay oo waa maxay dès que je répare une pièce kolkan meel ka hagaajiyaba inoo tira tom on baan meel kale buu ka kharaabaya xagan baa wax noqotay bal leeyay waan soo qaaday waan hagaajinaya lacag baan ku bixinaya waa la hagaajinaya Sooma way ka dhamaatay baan leeyahay waan ku noqonayaa meel kale uu ka sii hayay halkan la hagaajiyo bal leeyahay uu iga dhawaan way gaarigan shaqadiisu shaqada caynkaas ee dhamaan waxa loo yaqaanaa travail de Penelope aad baan ni salaamaya saxaabay intaas buu cashirkeenu maanta ku eegayay commentigana ka iloobin igala soo wadaag aragtidaada sidaas oo kalena si aad uga faa'iideysato casharkan maalin walba iyo mar walba oo soo daadino waa inaad ku xidhnaataa subscribe-ka iyo like-ka ka iloobin ha moogani waan salaamaya ciao ciao